وحرقة وحوي وري عبد المالك موسى علدون samafalaha waxa weeye maaragtay xidhan maxkamaduna runtii ay tilmaantay in waxa weeye wax dembiya lagu waayay inay maalin walba waxa weeye dad miidiyaha u soo fadhiistaan iyagoo waxa weeye isaga dhaleecaynaya oo gaalaysiinaya oo dalbanaya waxa weeye in la dilo arrintaasina waxa weeye qof muslima ma banaano waxa weeye dhiiggiisa in xaq darro waxa weeye lagu daadiyo waxaynu ogsoonahay oo la soconnaa waxa weeye waalidiin isbuucii u dambeeyey imka hadlayay oo runtii waxa weeye aad iyo aad waxa weeye ugu calaacalaya waxa weeye oo maaragtay doonaya cabdimaalik inay waxa weeye dhaleecayn aanu lahayn inay waxa weeye dusha ay ka saaraan iyo waxa weeye dembiye aanu qabin oo waxa weeye maxkamadiiba ay ku weyday ayay doonayaan inay waxa weeye ku cambaareeyaan oo waxa weeye ay geed xajiin la ay marmariyaan cabdimaalik waxa weeye maxkamad horteed baa laga fasaxay oo waxa weeye waxba lagaga waayay إن شاء الله إلهنا سبحانه وتعالى وحوليه سواء كهالله وحوي رنتي وأجنهي وحوي شوي عيسى وحوي نكي قال كهاي كوبر با وحوي دعرت القرآن يسبعس وحوي مبران حقيقة وحوي رنت لقى الشيء وأنا لقى بيرين با وحوي في عن شيء حقه هنا وحوي إن للددو إن لقريه يعد عيد صوب بعدين سعب الله صاروا مدنا وحوي ومبهنا تجاد وحوي يضاه اللعدة culimada Soomaaliland ayuu sheekhu ugu baaqay inaanay xaqqa iyo daafaca diinta islaamka ka aamusin ay xaqqa ku aadimaan culimaduna waxa weeyaan waa inay arrimaha ay si adag waxa weeye runtii ay uga hadlaan oo waxa weeye ay soo galaan oo waxa weeye arrimahaasi waa arrimo diineed weeye waa arrimo caqiidada muslimiinta waxa weeye saameynaysa ee dhaqankeennii wanaagsanaa waxa weeye saameynaysa waan ognahay waxa weeye Joy Ciisa inay tahay gabadh waxa weeye baadariyada oo waxa weeye maaragtay diin fidinaysa oo ku baaqaysa oo waliba macallin ku ah inay tahay waxa weeye waa arrin xaqiiqo ah oo biyo kama dhibcaana oo ilmaha sawiga ay waxa weeye uu garanayo ilaahina subxaanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ذاتك إلهي سبحانه وتعالى waxa uu leeyahay gaalada waxa weeye ka wali dhiganaya dadka muuminiinta aso kadood waxa weeye ka wali dhiganaya ayabtawuna indahum al-izza ma waxay moodayaan gaalada agtooda in waxa weeye cisi iyo sharaf iyo maamuus inuu yaalo fa inna al-izzata lillahi jamii'a sharaf dhamaanteed ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa waxa weeye agtiisa ay runtii waxa weeye ahaatayba ilaahi subhanahu wa ta'ala uu leeyahay aayad kale ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay am naj'alu alladhina aamanu wa 'amilu as-salihati kal mufsidina fil ard am naj'alu al-muttaqina kal fujjar ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay ma waxaan waxa weeye kala mid aanu dhignay dadka waxa weeye muuminiinta ilaahay rumeeyay waliba amalka wanaagsan sameeynaya ma kuwa arlada macaasida iyo gaalnimada ku fasahaadinayaan kala mid dhignay ilaahay kala mid ma dhigin waxa weeyaan waan arkaynay in waxa weeye Cabdimaalik maanta gaalnimo lagu xukumay in waxa weeye maaragtay isagoo muslima oo waxa weeye shahaadanaya oo ilaahay subhanahu wa ta'ala qiraya oo diin iyo waxa weeye tawxiid maanta ku xidhan in waxa weeye la gaalaysiyo dhiigiisana lagu dulbarnaystay waan arkaynaa maanta oo kale waxa la gudban culimada muslimiinta inay waxa weeye xaqa iyo baadilka waxa weeye inay kala cadeeyaan ilaahayna subhanahu wa ta'ala amar ayuu ku bixiyay waxa weeye xaqa iyo baadilka in waxa weeye la kala cadeeyo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay la tubayyinunahu lin-nas wa la taktumuna waxa weeye xaqa waa cadeyseen oo waxa weeye ummadda u cadeyseen ba ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay oo waxa weeye xaqa waa inaydan qarin marka walaalayaal culimada waxaan ugu baaqayaa culimada Soomaaliland khaasatan waxa weeye ku nool inay waxa weeye arrimaha ay si adag waxa weeye uga hadlaan in waxa weeye jimcahan maanta soo socda maanta waa khamiis aan hadlaya jimcaha khudbadaha waxa weeye in lagaga hadlo manaabirta waxa weeye in laga sheego waxa weeye gaalada oo la jecelaado oo waxa weeye loo muujiyo waxa weeye maaragtay jacayl iyo kalgacayl iyo difaac loo muujiyaa inay arrimo waxa weeye caqiidada waxa weeye khatar ay ku tahay weynaynu walaalayaal ogaana ummadana waxa weeye aynu ga dignaa waxa weeye asal weyn baa ku qotama oo al-walaa wal baraa la yiraahdo ayaa halka ka ratibmaya waxa weeye weynay culimada islaamku waxa weeye arinta ay ka digaan oo waxa weeye maaragtay Joy Ciisa caruurta subac quraan iyo waxa weeye maaragtay qaala Allahu iyo waqala rasuuluhu dawma dhigayso waxay u dhigaysana waxa weeye waa la garanaya waa shay cad oo la garanayo weeyaan marka ilaahay subhanahu wa ta'ala ha lagaga boqo waalidiinta habeenadii u dambeeyay warbaahinta ka hadlayay oo eedo culus u jeedinayay Cabdimaalik Muuse Coldoon ayuu sheekhu iyagana ugu baaqay inaanay dambi aanu lahayn dusha u saarin
muwaadinkaasi ay daafaca diinta islaamka qayb ka noqdaan. waalidiintaana waxaan leeyahay cabdimaalig carruurtiinna waa idinka lex jeclo badan yahay. idinku waxa aad rabtaa inaad dhistaan waxa weeye mustaqbalkooda adduunka, isaguna wuxuu rabaa inuu dhiso mustaqbalkooda waxa weeye berrito ee aakhiro, oo waxa weeye ay naar jirkooda uu ka badbaado, oo dhaqan toosan ay bartaan, oo diintooda iyo shareecada islaamka waxa weeye ay bartaan oo waxa weeye ay ku dhaqmaan. maxamed cabdilaahi soo fadhiistay Star TV Berbera.